website inaad design garayso oo naqshadihiisa iyo wax walba balaaginkiisa appearance-giisa wax walba oo website ku saabsan inaad barato waa qasab bay kugu tahay. Ayaan ognahay saaxiibayaal dunida ganacsiga aad buu xowl u yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. saaxiibayaal soo dhawaada meel walba daafaha dunida ka joogtaan. channelka daawanaysa waa Lulu Academy. saaxiibayaal maalmahan waa iska mashquulnay ilaa 20 dhowr cisho channelkeena muuqaal maana soo gelinin. waxaan ugu horreyn soo dhaweynayaa saaxiibada maalmahan igu soo biiray ee channelkii sida macnaha zaa'idka ah ugu soo biiray. saaxiibayaal soo dhawaada, channelka waa channelkiini. channelkan waxyaabo fara badan ayaan kusoo gudbinaa. inta badan ama badanaaba channelkan waxyaabahan kusoo gudbino dhammaantood waa technology related. dhinac kasta oo teknolojiyada ayaad wax ka baranaysaa, haddii ay noqoto muuqaal samaynta, haddii ay noqoto AI-ga, haddii ay noqoto electrica Facebook-ga, haddii ay noqoto koorsooyin goosgoos ah meelahan kusoo gudbino, haddii ay noqoto applicationada sida maalinlaha ama bilaha usoo baxa ee Android-ka iyo iPhone. marka saaxiibayaal soo dhawaada, wax walba oo teknolojiyad ku saabsan ayaad channelkana ugu imaanaysaa. insha Allah waa rajaynayaa marka hore inaad macnaha muuqaalka like saarto. muuqaalka like-tiisa aad iyo aad bay u yartahay saaxiibayaal. like-ta waxay naga caawinaysaa inaynu dad badan gaarno. marka hal mar aan kaa codsado inaad muuqaalka like saarto. waa saarta ayaan u malaynayaa. saaxiibayaal maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay 3 xirfadood aan isleeyahay oo kuwa ugu wanaagsan ee dadka dhalinyarada ah aad u soo jeedin karto maanta inay bartaan. sidaynu wada ognahay waxaynu ku soconaa sanad cusub oo ay 2 bil inoogu dhiman tahay. waxaan hubaa haddii aan xirfadaas dabaqno ama aan xirfadahaas baranno in nolosheena waxyaabo fara badan iska bedeli doonaan. dhammaan channelada kala duwan ee teknolojiyada ah ayaan idinkaga soo arooriyay xirfadahan, waana hubaa waana triga ayaan idinkaga dhigayaa maanta. haddii aad marka 3 xirfadood aad noloshaada ku dabaqdo insha Allah 2024 waa rajaynaya inaad meel fiican gaarto. soo dhawaada saaxiibayaal. saaxiibayaal xirfada koowaad ee aan ku leeyahay inaad barta waa qasab, waxaa waaye website design. meelo kala duwan ayaad ku aragtay website design, laakiin aniga maanta waxaan kula wadaagayaa website inaad samayso ama website inaad design garayso oo naqshadihiisa iyo wax walba balaaginkiisa appearance-giisa wax walba oo website ku saabsan inaad barato waa qasab bay kugu tahay. ayaan ognahay saaxiibayaal dunida ganacsiga aad buu xowl u yahay. ganacsi kastaana wuxuu u baahan yahay website waxa waaye kusoo bandhigo xogtiisa iyo waxyaabaha service-ka uu qabto si macnaha uu dad fara badan oo customer ah oo around the world ku nool inuu u gaaro. marka adiga haddii aad ka mid tahay dadka website-da naqshad gareeya, waxaa qasab ah shirkadahaasi u baahan in waxa waaye ganacsigooda meel fog la geeyo inay ku baahanayaan oo website-kooda aad u naqshad garaynayso, oo aad u design garaynayso, oo wax walba oo ay u baahan yihiin aad u qaban karto. xirfadaasna waa midda koowaad ee ugu muhiimsan marka laga hadlayo sanadahan dambe, khaasatan 4 ilaa 5 sano ugu dambeysay. maxaa yeelay businesska gradually waa changing, durba uu isbedelayaa businessyada. marka businesskaas wuxuu u baahan yahay customer fara badan inuu helo. suu customerkaas u helana wuxuu u baahan yahay inuu website lahaado oo ay tahay meel uu kusoo gudbiyo xogihiisa iyo updatekiisa ama servicekiisa khaaska ah ee shirkadda kusoo biiray. marka saaxiibayaal haddii aad website-ka naqshadayn karto oo aad hagaajin karto, waxaa waaye xirfadaada waa loo baahan yahay. si aad website-ka u naqshadayso xirfado badan uma baahna, kaliya waxaad u baahantahay inaad iska dhisto WordPress. waa kan ugu muhiimsan ee sanadahan dambe la isticmaalo. marka haddii aad WordPress-ka garanayso oo aad naqshadayn karto oo aad habeyn karto oo waxa waaye xogihii aad soo gelin kartay shirkadaha u baahnayeen, waxaan ku ballan qaadayaa in waxa waaye noloshaada 2024 ay noqon doonto mid adigana u riyaaqdo dadkaagana aa ugu faa'iideyso. marka xirfada koowaad waa website design. saaxiibayaal xirfada labaad ee aan ku leeyahay xooga saar 2024 waa content creator. saynu ognahay YouTube-ka wuxuu leeyahay wax loo yaqaan short, Facebook wuxuu leeyahay wax loo yaqaan reels, sidoo kale TikTok wuxuu leeyahay muuqaalada gaaban. marka dhammaan muuqaaladahan dadka dhammaan aaladahan isticmaalo sida caadiga ah ma wada sameyn karaan muuqaalada. dadka qaar way sameystaan, dadka qaarna waa loo sameeyaa. marka maadaama adduunkii muuqaalada uu aad u socdo, haddii aad noqoto qof content creator markaan ku leeyahay waxay iskugu jirtaa 2 qaybood. qayb waa writing skills oo xirfad qoritaan ah, qaybta labaadna waa muuqaal sameyn. muuqaal sameyntaas ayaan anaga ka wadaa. qaybtan ka hadlayo waa qaybta muuqaal sameynta. marka haddii aad muuqaaladaas iyo waxyaabahaas isku habeyn karto, short aad sameyn karto, long term video aad sameyn karto ilaa 8 daqiiqo gaaray, ilaa muuqaalada 1 daqiiqo ilaa 2 daqiiqo gaaray 30 second haddaad sameyn karto, waxaad u shaqeyn kartaa meelaha freelancing-ka ah. saynu ognahay waxaa jira dhowr meelood oo freelancing oo lacag lagaga sameeyo muuqaal sameynta si guud. waa Upwork iyo Fiverr, waa labada hadda ugu muhiimsan ee waxa waaye Soomaalida badan ay lacag ka sameeyaan. marka haddii aad taqaano xirfadda video editing-ka oodna content creator tahay oo aad muuqaal sameyn karto, dhulka kuma dhacaysid oo waxa waaye shaqooyinkaaga waa diyaar, maadaama dunida ay isu bedelayso meel muuqaal lagu sameeyo. saaxiibayaal xirfadda saddexaad ee aan ku leeyahay baro oo xooga saar 2024 inta aanan la gaarin waa AI. xirfadan badanka Soomaalida ma yaqaanaan oo waxa waaye kuma baraarugsana.
laakiin aniga waan kuu soo xulay sababtan kugu soo xulayna wax kale maahan waxaan rabaa inaan update ka dhigo haddii aad AI-ga ama artificial intelligence wax loo yaqaano garaadka macmalka aad barato qaabka loo sameeyo haddii aad application ku sameyn karto haddii aad website ku sameyn karto haddii si guud AI-ga aad barato noloshaada waxaan ku hubaa 2024 inay isbedelayso maxaa yeelay awal hore website-ka iyo muuqaalada iyo dhammaan waxaa sameyn jiray dad baa ku shaqo lahaa laakiin maalmahan dambe waxaa sameeyo robotyo haddii marka qofka robotkaaba haddii aad sameyn karto robot shaqada kuu qaban lahaa iyo interface-yada iyo plugins waxyaabahaas oo dhan haddaad diyaarin karto oo prompt engineering aad ku noqon karto AI-ga waxaan hubaa in noloshaada iyo tan qoyskaada ayadana sidoo kale ay isbedeli doonto adigan aad ka faa'iideysan karto maxaa yeelay wax walba waa la casriyey digitalization ayaa laga dhigay oo hadda muuqaalada robotya sameeya sidoo kale wax walba qoraalka xitaa hadda waad aragtay ChatGPT baasha baa sameeyay marka haddii aad noqoto aniga kuma dhahayo robotka qofka sameynayay waa inaad noqotaa waa qasab kuma dhahayo laakiin saynu ognahay waxaas waa expert laakiin adigu waxaad noqon kartaa duulasha soo bax qalabyada soo bax ee robotyada lagu sameeyo waxa way howlahan qabta ayaad baranaysaa marka aad barato kadibna waqti yar ayaa shaqada lagu dirsaday aad ku qaban kartaa haddii muuqaal samee lagu dhaha meesha baad gelinaysaa muuqaalka isaga is sameynay haddii qoraal isoo qor lagu dhaha xagga baad gelinaysaa qoraalka isaga is qoray marka haddii aad qof update noqoto oo mar walba diyaarsan waxyaabahaas oo dhan ayaa kuu fududaanaya marka saaxiibayaal saddexdaas xirfadood ayaan jeclaystay inaan kula wadaag sidaan ognahay maanta muuqaalkeena uu iska gaabnaa waxaan ugu talagalay kaliya inaan hadal badan gelin oo hawaaye aad adiga noloshaada maarayso intaan 2024 la gaarina aad waxa waaye saddexda xirfadood meel iska saar ilaa dhamaadka haddii aan la soo gaarto aan ka codsado inaad channelka subscribe saarto sidoo kale muuqaalka like garayso saaxiibayaal dadka channelkeena ku xiran ama dadka soo booqdo ee imaada iyo kuwa macnaa intay soo booqdaan subscribe aan saarin waxaa badan dadka channelkeena intay soo booqdaan kaliya ka bax saaxiib haddii aad muuqaalka daawanayso waan ka codsanay inaad subscribe saarto aad iyo aad u mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته